السلام عليكم وعليكم السلام صاحبيال isku soo noqod wanaagsan muddo ayaan ka maqnaa channelka laakiin ugu dambeyn waan soo laabtay channelka hadii aad ku cusubtahay ku soo dhawow subscribe saaro muuqaalada soo dhiga si ay ku soo gaaraan sidoo kale muuqaalkan like saar hadduu ku anfaco si dad badan uu gaaro aad ayaad u mahadsantahay muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sida aad ku dooran lahayd career aad jeceshahay dad badan oo waxaa jira soo weydiiyay sidee career ay jecel yihiin ay ku dooran lahaayeen sidee career lagu dooran karaa sideen ku ogaan karaa waxa aan jeclahay su'aalahaas iyo kuwa kale oo la mid ahba ayaa muddooyinka ugu dambeeyay soo laalaabanay waa arrin horta aad muhiim u ah inaad career aad dooratid waana arrin xasaasi ah oo ma ahan wax fudud inaad career aad dooratid inaad career aad jeceshahay aad dooratid ayadana waa arrin kale oo challenge ah muuqaalkan waxaan kugu la wadaagi doonaa 6 talo oo ku saabsan si aad ku dooran lahayd career aad jeceshahay talada ugu horeysa waxaa la yiraahdaa task of a title wax la yiraahdo task of a title macnaheedu waxay tahay dadka markay career ay dooranayaan waxa ay fiiriyaan title-ka ee ma fiiriyaan taskiga ama shaqada ay qabanayaan saas darteed waxaa loo baahan yahay inaad fiirisid shaqada aad qabanaysid nooca ay tahay markii aad wax dooranaysid kaliya lama rabo inaad dhahdid waxaa noqonayaa dhakhtar noqonaya engineer baa noqonaya waxaa noqonaya entrepreneur noqonaya يعني waxa aad dooranaysid title-kooda kaliya inaad fiirisid lama rabo waxaa loo baahan yahay inaad fiirisid taskiga ama shaqada aad qabanaysid ee meeshaas ku jirto nooca ay tahay inaad ka soo bixi kartid tusaale haddii aad dhahdid dhakhtar inaan noqdo ayaan jeclahay dhakhtarka wuu badan yahay oo waxay kala leeyihiin yani caafimaadka wuu badan yahay dhakhtar waxaa jiro xanuunada guud dhakhtar waxaa jira ilkaha dhakhtar waxaa jira lafaha marka tusaale haddii aad rabtid noqotid dhakhtarka lafaha oo kale muxuu qabtaa dhakhtarka lafaha shaqadiisu waa noocee maxaa looga baahan yahay inuu qabto marka uu shaqeynayo marka haddii shaqadaas ayada ah aad ka soo bixi kartid dabcan waad noqon kartaa way macnaheedu laakiin kaliya inaad dhahdid waxaan rabaa inaan noqdo wax hebel ama title aad sheegatid kadibna asaas wax ku dooratid ma fiicno marka khaladka ay sameeyaan dadka waxay tahay inay kaliya title-ka ay focus ka saaraan laakiin aysan saarin taskiga la qabanayo sidaas cagsigeeda waxaa loo baahan yahay marka in aad focus aad saartid shaqada aad qabanaysid ama taskiga aad qabanaysid oo aadan kaliya focus ka saarin title-ka aad rabtid inaad noqotid talada labaad waxay noqonaysaa wax la yiraahdo visualize me plus me plus-ka waa adiga shakhsiyan qofka aad rabtid in aad noqotid mustaqbalka adiga maanta sanadkan la joogo sidaan ayaa tahay tusaale 10 sano kadib waxaad rabtaa inaad si noqotid oo adiga macnaha isa sawiro sida aad noqonaysid 10 sano kadib ama 5 sano kadib marka sida adiga aad rabtid inaad noqotid waa inaad marka hore aad sawirataa كو وأنا على أرتا مستقبلك بحان ربا إنا نقضو جولس نوعي أيان ليا لابو شقا نوعي أيان جعل هاي إنا نسميه أما شقا نوعي أيا إيقلنتو أو أن ربا إنا نسميه تايتولك شقا آت سمينيزد سيدو كاله إندستريجان ربا إنا كشقايو وإنا الإسويديسا حاجات كو هابون تاي حاجات كو بحيسا دنك انجينير نيمada dhanka caafimaadka dhanka teknolojiyada dhanka aad rabtid waa inaad ayadana qeexdaa sidoo kale kambaniga aad jeceshahay inaad u shaqeysid ayadana waa inaad qeexdaa oo kambaniyaasha rabtid inaad u shaqeysid intaas ayaad qeexaysaa waana adiga sida aad rabtay inaad noqotid mustaqbalka marka intaas aad qeexid waxa ku fududaanayso inaad dooratid career aad jeceshahay ama inaad dhan aad u badato oo inaad u jihaysatid ayaa ku fududaanaysa taasna waa talada labaad talada saddexaadna waa audit your time waqtigaaga waa inaad aad qorshaysid waa inaad samaysataa timetable waa inaad samaysataa sidoo kale timetable kaas shaqada aad rabtid ama career-ka aad rabtid inaad dooratid waqti intee lagaya ka galay waqtiga ka galay may u qalantaa tusaale waxaadan jeclan hadii waqti aad iska gelisid waad ku qasaaraysaa waqtiga waa wax ugu qaalaysan adduunka dartaan jiro marka sidaas ogeed waa in aad timetable yeelataa waqtigaada aad qeexdaa aad qala qorataa sidaas darteedna waqtiga aad gelinaysid career-kan waa inaad fiirisaa hadii aad ku faraxsan tahay waqtiga ka galaayo dabcan horey waa u sii socon kartaa hadii aadan ku faraxsanayn waqtigaas ka galaayna dabcan kaas career-ku ma noqon karo marka waqtigaaga ka galaayo waa inaad fiirisaa taasna waa talada saddexaad talada afraad aan ku siinayo hadii aad rabtid inaad dooratid career aad jeceshahay waxaa la yiraahdaa hadii career aad rabtid inaad samaysatid tusaale adduunka hadartan wuu hormaray career hadii aad rabtid ma ahan muhiimadeeda ama kuma qasbanid inaad jaamacad aad dib ugu laabatid ama jaamacad aad raadisatid digrigeeda 3 sano ama 4 sano wuxuu rabo ha noqdo kaliya waxaad u baahan tahay inaad career-kaas aad dhisatid waxaadna ku dhisan kartaa qaab ka duwan qaabka waxbarashada jaamacadda aan ahayn oo kuma qasbanid inaad jaamacad aad tusaale career baad rabtaa inaad samaysatid career-kaas ma dhahaysid niyo career-kan si aan u sameeyo waxaan ku qasbanahay inaan aado jaamacad oo 4 sano ama 3 sano aan soo qaato degree dabcan kuma qasbanid marka uma baahnid inaad degree uma baahnid marka career-kaaga si aad uga meel gaartid ama aad u samaysid inaad jaamacad aadid waxaad career-kaada ku dhisi kartaa hab aan ahayn habka jaamacadda oo adduunka caalamka dartan la joogo kaliya uma baahnid inaad jaamacad wax ka baratid ee qaab kale oo wax ku baran kartid ayaa jiro wax walbana internetka online ayaad ka baran kartaa marka hadaa rabtid inaad career samaysatid
kuma qasbanid inaad aadid jaamacad si aad career-kaas u dhisid. dabcan jaamacaddu waa muhiim oo faculty-yaasha ama waxbarashada qaarkeed muhiim ayay tahay inaad aadid inaad soo baratid jaamacad, laakiin kuma qasbanid inaad jaamacad ku laabatid ama jaamacad aad aadid si aad career aad u samaysatid. waxaan filayaa taas in ay la fahanteen. talada shanaadna waxay tahay haddii aad career samaysatid, career-kii aad samaysatay, tusaale waxaad tiri waxaan rabaa inaan noqdo programmerkii markii aad bilowday sanad 2 sano 3 sano ha noqoto ama 1 sanaba markii aad ku jirtay, waxaad aragtay inaan lagugu talagelin programming oo aadan ka soo bixi karin shaqadiisa. saas awgeed waxaa wanaagsan inaad ka bedelatid career-kaas asaga ah oo aad mid kale aad dooratid. marka inaad isbedel ku samaysid career-kaaga waa qodob kale oo muhiim ah. haddii aad isbedel ku samaysid career-kaaga, wax kale oo aad jecesha aad dooratid, halkaas ayaad oga sii talaabo qaadaysaa oo horumarkaaga ayaad sii wadanaysaa. laakiin haddii aad meesha ayaad ku adkaysatid, wax isbedel kama gaaraysid. waxaana la yiri inaad isbedel ku samaysid career-kaaga haddii uu ku cuntami waayo waa wax aad u fiican. sideedaba nolosha wax haddii kuu socon waayaan, inaad ka wareegtid oo aad wax kala dooratid waa wax aad iyo aad u fiican oo sax ah. marka kuma qaldanid in career-kaaga aad iska bedeshid haddii kuu cuntami waayo. tusaale 5 sano ka hor si aad u fikiraysay ama sanad ka hor sida uu kula ahaa waxaan kulama noqonayo. markii aad bilowday waad ku faraxsaneed, waad xiiseynaysay, laakiin markii aad gudaha u gashay muddo yar aad ku dhex jirtay, waxaad aragtay in aan lagugu talagelin meeshan. kadibna waxaad samaynaysaa inaad career kale aad dooratid. marka inaad isbedel career-kaada ku samaysatid waa qodob kale oo muhiim ah. asagana waa inaad ku dadaashaa. marka haddii career-kaada uusan kuu cuntamaynin, iska bedel oo mid kala dooro. waxaa jira wax la yiraahdo end of history illusion. end of history illusion waxay tahay qofka bini aadanka way ku adag tahay ama yacni ma qiyaasi karo 5 sano 10 sano waxa isbedelka ku imaan kara noloshiisa ama career-kiisa muu qiyaasi karo. saas darteed ayaa keenaysa marka in uu isbedel aadan filaynin uu kugu imaado. saas darteedna aad ka weecatid wadadii aad ku socotay ama career-ka aad ku socotay. talada lixaad ee aan ku siinayana waxaa la yiraahdaa the greed search mindset ayaa la yiraahdaa. the greed search mindset kan waxaa waaye haddii aadan wax idea aadan ka haysanin waxa aad jeceshahay. tusaale career aad jecesha doora ayaa lagu yiri, balse maba ogidba horta career aad jeceshahay sida aad ku dooran lahayd ama waxa aad jeceshahay ma taqaanid. marka haddii aadan garanaynin ama aysan kuu caddayn waxa aad rabtid inaad samaysid, waxaad samayn kartaa waxa la yiraahdo the greed search mindset. laba xiriir aysan u jooranaysaa waxyaabaha aad jeceshahay ama activitieska aad jeceshahay inaad samaysid. waxaad iska barbar dhigaysaa activitieska aad jeceshahay inaad samaysid iyo ficilada aad samaynaysid inay kuu dhaweynayaan wadada aad rabtid ama tusaale career-ka aad rabtid inay kuu dhaweynayaan. marka afar wax ayaad isgarab dhigaysaa. afartaas wax waxaad fiirinaysaa ficilada aad samaynaysid ama dhaqankaaga ama habka aad wax u samaynaysid wax kuu dhaweynayo, wadadaas inay kuu dhaweynayso ayaad fiirinaysaa. sidaas ayaana ku ogaan kartaa waxa aad jeceshahay ama waxa aad rabtid inaad samaysid. waxaan filayaa muuqaalkan inaad ka heshaan. intaas ayaan kusoo koobayaa. inta haddii aad soo gaartay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan muuqaalka like saar si dad badan u gaaro. channelka haddii aadan weli subscribe saaran, fadlan subscribe saaro, gambaleelkana furo si muuqaalada halkan aan soo dhigo ay kuu soo gaaraan. intaan ku kulmayna muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.